taariikh nololeedka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Odawa Yuusuf Raage. Odawa Yuusuf Raage waxa uu ku dhashay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadii 1987. Waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay isla degmada Aadan Yabaal, halka tan dugsiga sare uu ku qaatay magaalada Muqdisho sanadihii 2002 ilaa 2005. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ku biiray sanadii 2006 waxa uuna ka tirsanaa guutadii 54aad ee ilaalada madaxtooyada ee magaalooyinka Baydhabo, Jowhar iyo Muqdisho. 15 bishii toddobaad 2007 waxaa tababar ciidan loogu qaaday dalka Uganda. askar uu ka mid yahay Odawa Yuusuf Raage oo tiro ahaan gaaraysay 180 askari oo muddo hal sano ah tababar ku qaatay kulliyadda Kawaweta Military Academy ee dalka Uganda. waxa uu ku bartay shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ilaalinta madaxda dalka VIP Protection Course. waxaa kaloo ka mid ah takhasusaadkiisa uu bartay muddadaas hogaaminta ciidanka lugta, maadada shiishka iyo weliba orodka. markii uu tababarka ku soo idlaaday isaga iyo dhalinyaro kale oo kaalimo wanaagsan ka soo galay Kawaweta Military Academy, waxa uu u xilsaaray madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistee inay tababaraan ciidamo cusub oo dalka Uganda loo qaaday oo ay macallimiin tababarayaal ah ay ka noqdeen. waxaana uu xilligaasi qaadanayay cashiro kale oo dheeri ah tababarkaas oo ka dhacayay Bihanga Military Academy ee dalkaasi Uganda. taariikhdu markii ay ahayd 26 bishii 12 2009 ayuu qaatay xidigle. isla sanadkii 2009 waxa uu casharo ku aadan abaanduulka hoose ku qaadanayay dalka Uganda, gaar ahaan kulliyadda Kabamba ee ciidanka lugta, halkaasi uu ku qaatay xidigtii ugu horreysay. sanadii 2010 ayuu dalka dib ugu soo laabtay. waxaa loo furay siminaar 45 cisho ah kaas oo uu ku qaatay dugsiga General Kahya ee magaalada Muqdisho. isla xilligaas saraakiil uu ka mid yahay waxaa loo magacaabay taliyaal. waxa uu taliye horin ka noqday ciidan lagu tababaray dalka dibaddiisa. muddo kadibna waxa uu noqday abaanduule urur inta uu ka tirsanaa ciidankaasi. intaa kadib waxaa loo soo bedelay guutada labaad oo ahayd ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya. waxyar kadib waxaa loo magacaabay taliyaha horinta koowaad ee guutada labaad sanadihii 2010, 2011, 2012. waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay xoreynta gobolka Banaadir iyo gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. waxa uuna ku mutaystay dalacaadyo iyo weliba iyadoo loo dalacsiiyey 2 xidigle. sanadii 2013 waxaa loo dalacsiiyey saraakiil Odawa Yuusuf Raage uu ka mid yahay oo laga soo xulay saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo mudan in la dalacsiiyo. waxa uuna noqday dhamme. 1 bishii 8 2013 waxaa tababar ciidan loogu diray dalka Turkiga muddo hal sano ah, halkaasi oo uu ku qaatay takhasuska ciidanka lugta iyo weliba luqadaha. markii waxbarashada u soo dhamaatay waxa uu dalka dib ugu soo laabtay sanadii 2014. sanadii 2014 2 bilood oo fasax ah kadib waxa uu waxbarasho u aaday dalka Turkiga, gaar ahaan kulliyadda dagaalka oo lagu magacaabo Turkish Army War College. waxa uu ku soo qaatay shahaadada masterka ee ciidanka lugta dalka. waxa uu dib ugu soo laabtay sanadii 2016 bishii 7. intaa kadib waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon xoogga dalka, waxaana loo dalacsiiyey darajada gaashaanle. waxaana loo magacaabay abaanduulaha ururka 6aad ee ciidanka ilaalada madaxtooyada. sanadii 2018 waxaa loo magacaabay taliyaha ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, waxaana loo dalacsiiyey darajada gaashaanle dhexe. 16 bishii 8 2018 waxaa loo magacaabay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana loo dalacsiiyey darajada Sarreeye Guuto. 23 bishii 8 ee sanadan aan ku jirno waxaa loo doortay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed.